habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub oo aan kugu soo gudbin doono dhacdooyinkii ugu dambeeyay waxyaabaha kale ee dunida ka cusub habeennimadan qodobadan caawa barnaamijka idinkugu haynana waxaa ka mid ah mabooska ayuu kala bixi doonaa qaramada midoobay golaha cusub ee nabadda ee Trump uu aasaasay muxuu ka dhignaa hadalkiisii dhowaan ee ballaarinta shaqada golahan waa maxay doorka caalamiga ah ee la sheegay inuu yeelan doono isagoo ka gudbi doona arrimaha Gaza muxuuse yahay ballanqaadka ay sameeyeen dalalka xubnaha ka ah golahan ee nabadda macluumaad ku saabsan arrimahan ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan barnaamijka waxaan kaloo ku eegaynaa caawa waa maxay qayladhaanta ku aadan adeega militariga ee kasoo yeeraysa hogaanka sare ee ciidamada Israel masaadire ayay furimaha hore ku wajahayaan mise cabsi kale ayaa ku soo korortay muxuuse yahay cutubka cusub ee ciidan ee lagu diyaarinayo gudaha Israel afaahinta cabsidan iyo diyaargarowga kale ee ka soconaya Israel ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa ma dib ayaa loo dhigay dagaal dhex mari kara Masar iyo Itoobiya waxay khubaradu ku tilmaameen fursadaha kale ee u furan dalalkan marka laga soo gudbo arrinta webiga Niil maxaa kale oo jira oo isku hayaan dalalkan waxayse yihiin xalalka kale ee lagu dejin karo khilaafkan xiisadeed ee kasoo cusboonaaday mar kale gobolka geeska Afrika ina warbixin ayaan idinkaga haynaa dhammaan macluumaadkan oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan barnaamijka maxaa cusub ee caawa Israel ayaa waxay soo dirayaan cabasho xoogan sida lagu sheegay warbixin Israel gudaheeda ka timid ciidanka militariga ayaa waxa wajahaya yaraanshiyo ku aadan ciidamada ku dhow 12,000 oo askari oo ka tirsan qaybaha kala duwan taasi oo ka dhalatay dagaalada uu ka waday dhowr jiho tan iyo 7 Oktoobar 2023 wargeyska dacwada xaranood ee Israel ka soo baxa ayaa sheegay in ciidanka uu la dhacayo farqi gaaraya ilaa 12,000 askari oo ay ku jiraan ku dhawaad 7,500 oo ku sugan jihooyin dagaal iyadoo ay jirto joogitaan ballaaran oo Gaza ah kan xuduudaha Lubnaan iyo Suuriya iyo howlgallada daanta galbeed ee la haysto sidoo waxa uu tilmaamay in Iiraantani ay laba jibaarayso culayska haysta askarta adeega joogtada ah iyo kuwa kale ee kaydka warbixintu waxa ay ku salaysan tahay hadallo rasmi ah oo loo gudbiyay guddiga arrimaha dibadda iyo ammaanka ee aqalka baarlamaanka Israel ee Knessetka lagu magacaabo ujeediyay madaxa waaxda qorsheynta ee maamulka shaqaalaha ee ciidanka Israel sareeyo guud Shaya Taib iyo sidoo kale hadallo kale oo saraakiil militari ay baahiyeen ciidanka Israel ayaa dhowaan waxa uu shaaciyay sameynta cutub cusub oo howlo badan qaban doona badankiisana laga soo xulay ciidamada kaydka taasi oo muujinaysa ku tirsanaanta joogtada ah ee xagga kaydka iyadoo ciidanka militariga Israel uu qirtay dhimashada 924 askari iyo dhaawaca 6,420 kale waxaa dhaawacaasina kasoo kala gaaray jihooyinka Gaza koonfurta Lubnaan iyo daanta galbeed iyo sidoo kale weeraradii Yemen ay isweydaarsadeen warbixintan ayaa timid xilli la sugayo natiijada wadaxaajoodida u dhexeeya Washington iyo Tehran iyadoo Israelna ay qiimeynayso in fashilka jidka diblomaasiyadeed uu kordhin karo suurtagalnimada xiisad sii xoogeysata oo gobolka bariga dhexe kasii jiri karta tan Oktoobar 2023 Israel ayaa waxay dagaal xasuuq lagu sifeeyay ka waday Gaza kaasi oo sababay dhimashada 72,000 oo Falastiiniyiin ah iyadoo dhaawaca ka dhashay dagaalkaasina uu kor u dhaafay 170,000 waxaana burbur baahsan uu soo gaaray kaabayaasha rayidka sidoo kale Israel ayaa weerar kala duwan ku qaadaysay Lubnaan sidoo kalena mar waxa ay beegsatay Suuriya iyadoona ay kala dhaxeeyeen weeraro ama weerar isweydaarsadeen xoutiyiinta reer Yemen waa hagaag aynu markana u talaabno shirkada xigta ee barnaamijka mar kale waxaa soo cusboonaatay khilaafka ka jira gobolka geeska Afrika ee u dhexeeya dowladaha Masar iyo Itoobiya iyagoo isku haya arrin ka baxsan markan biyo-xireenka weyn ee Itoobiya ka hirgelisay webiga Niil qaar ka mid ah khubarada ka faaloota siyaasadaha caalamka ayaa isku raacay in dagaal u dhexeeya labadan dal ee Masar iyo Itoobiya uusan ahayn mid lama huraan ah balse weli uu ka mid yahay suurtagalnimada miiska saaran haddii wadooyinka diblomaasiyadeed ay noqdaan kuwa fashilma xilli Qaahire ay shaacisay qadad cas oo cusub oo la xiriira maamulka iyo amniga badda cas dood uu ka qabtay telefishinka Al Jazeera arrimahan sareeya gaas Dr. Sayid Khuneym ayaa sheegay
in ikhtiyaarka dagaalka uu si aragti ahaan ah u jiro haddii aragti siyaasadeed la waayo, balse Masar ay u aragto ikhtiyaarka ugu dambeeya iyadoo taariikh ahaan door bidaysa xalal nabadeed. Tusaale ahaan arrinta webiga Niil iyo sidoo kale biyo xireenka weyn ee Itoobiya hirgelisay. Dr. Amani Al-Tawiil oo ah agaasimaha barnaamijka Afrika ee xarunta daraasaadka ee Al-Ahram ayaa sheegtay in hadallada Masar ee ku saabsan badda cas ay la xiriiraan dhaqdhaqaaqyada Itoobiya ee ku aadan helitaanka dekad badeed leh madax bannaani iyadoo ay u madax bannaan tahay, taasi oo Qaahiro ay diidan tahay iyadoo ku salaynaysa in badda cas ay tahay hanti ay wadaagaan dalalka ku teedsan badda oo keliya sida uu dhigayo sharciga caalamiga ah iyo heshiisyada badda ee dunida. Waxay tilmaantay in Itoobiya inkastoo ay tahay dal aan bad lahayn ay xaq u leedahay adeegsiga dekado iyadoo loo marayo heshiisyo sharci ah, balse aysan xaq u lahayn barsaldhig madax bannaan ah oo ay ku yeelato badda cas ama agagaarkeeda. Waxaana sarreeyagaas Qunayim uu adkeeyey in Masar aysan ogolaan doonin wax qabanqaabo ah oo wax u dhimaya amniga qaranka ama miisaanka awoodeed ee badda cas, balse waxa uu xusay in adeegsiga xoogga uu yahay suurtagalnimada ugu fog inta ay jiraan wadooyin siyaasadeed iyo kuwo diblomaasiyadeed oo loo mari karo xalka arrintan iyadoo aan loo jihaysan wax dagaal ah oo mar kale colaad gelin kara ama jiha qaldan u jihayn kara nabadda gobolka Geeska Afrika. Waa hagaag daawadayaal, waxay noo soo socotaa warbixin ku saabsan Trump oo shaaca ka qaaday in golaha nabadda ee uu sameeyey laga ballaarin doono howlaha Gaza oo keliya si uu dunida u wada gaaro. Haddaba muxuu yahay ama muxuu qorsheynayaa in booska uu kala baxo golihiisa qaramada midoobay? Waan eegi doonaa, balse marka hore aynu ku hakano qadar xasan. Weli waxaad daawanaysaan barnaamijka Maxaa Cusub oo si toos ah idinkaga imaanaya habeennimadan istuudiyaha labaad ee HBN. barnaamijyadana waxaad ka heli kartaan baraha internetka ee kala duwan sida Facebooka, YouTubeka, Twitterka iyo weliba Telegramka. idinkoo barta internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonline.tv kala socon kara oo ka akhrisan kara wixii warar degdeg ah iyo macluumaadyo kale. Ku xidhnow HBN oo ka dhigo weelkaaga wararka. Waxaa markan aynu sheekada ugu dambeysa ee barnaamijka jaleecno. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu si cad markan u sheegay in golaha nabadda ee hore u shaaciyay sanadkan uusan u ekaan doonin ama uusan ku ekaan doonin oo kaliya howlaha Gaza, balse la ballaarin doono si uu u daboolo shaqo adag oo ku wajahan keenista nabadda iyo xasilinta caalamka oo dhan. Isagoo la hadlayay wariyaasha saarnaa diyaaradda madaxweynaha, Trump waxa uu sheegay in golahu uu ka gudbi doono Gaza isla markaana ay hogaamiyaasha adduunka bixin doonaan lacago waaweyn oo lagu xalliyo dhibaatooyinka. Madaxweynaha Mareykanku waxa uu xusay in golahu la shaqeynayo qaramada midoobay inkastoo uu dhaliilay waxqabadka hay'adaasi oo uu sheegay inaysan ka faa'iideysan awoodaha ay leedahay. Trump waxa uu sheegay in hogaamiyaasha ugu waaweyn ee adduunka ay ku biireen golaha nabadda, isagoo adkeeyey in golahu fursad u leeyahay in uu noqdo golihii ugu muhiimsanaa abid ee taariikhda, isla markaana uu doonayo inuu ku guuleysto howlgalka Gaza iyo hirgelinta nabad ballaaran oo bariga dhexe ka hirgasha. Trump ayaa ku dhawaaqay dhismaha waxaa loogu yeero golaha nabadda 15 bishii Janaayo inuu idaaratay kadib markii la soo saaray qaraarka golaha ammaanka ee tirsigiisu yahay 2803 bishii November ee sanadkii tagay 2025, kaasi oo qeexay doorka golaha ee kormeerka qabanqaabada howlaha Gaza kadib joojinta colaadaasi. Si kastaba ha ahaatee, dhismaha golaha waxaa ka shakiyey dalal badan oo reer galbeedka ah kuwaasi oo ka gaabsaday ku biiristiisa sababo la xiriira awoodaha ballaaran ee la siiyey madaxweynaha Mareykanka oo ay ku jirto awoodda diidmada ee codka qayaxan iyo sidoo kale magacaabista xubnaha waqtiga dheer ka qayb ahaan doona golahan. Kormeerayaal ayaa u arkay qaab dhismeedkan isku day lagu dhisayo badal caalami ah oo barbar socota UN-ka, taasi oo loo adeegsan karo in lagu xareer baro doorka qaramada midoobay iyo sidoo kale golaha ammaanka. Golaha nabadda ayaa la filayaa inuu yeesho kulankiisii ugu horreeyay ee rasmi ah maalinta Khamiista ee toddobaadkan ka midka ee ku beegan 19 bishan Febraayo, kaasi oo ka dhici doona magaalada Washington ee cariga Mareykanka. waxaana uu noqonayaa kulankii ugu horreeyay ee tan iyo markii axdigiisa la saxiixay laguna saxiixay madasha Davos bishii hore ee la yeesho.
kulanka waxaa lasoo bandhigaya ama lagu soo bandhigayaa furitaanka hay-adda caalami ah oo cusub oo loo xil saaray la socodka qabanqaabada Gaza kadib xabad joojinta halkaasi ka hirgashay sida ku xusan qoraalka martiqaadka ee dalalka xubnaha ka ah. Golahu waxa uu bilaabi doonaa hindise caalami ah oo dib u dhiska Gaza ku saabsan kaasi oo mideynaya dalal hay'ado iyo sidoo kale la howlgalayaal si loo aasaaso nabad waarta iyo mustaqbal wanaagsan oo Gaza ka hirgala. Madaxweynaha Mareykanku waxa uu sheegay in dalalka xubnaha ka ah golaha ay ballan qaadeen in ka badan $5 bilyan oo lagu taageerayo dadaalada bini'aadantinimo iyo kuwa kale ee dib u dhiska kaabayaasha Gaza. qoraal hore uu ku daabacay bartiisa Truth Social-ka Trump waxa uu xusay in dalalka khaliijka ay ballan qaadeen inay dirayaan kumanaan shaqaale si ay uga qayb qaataan ciidanka xasilinta ee Gaza isagoo ku adkaystay in golahu noqon doono hay-adda caalamiga ah ee ugu muhiimsan taariikhda islamarkaana uu ku faanayo in uu madax u yahay golahaasi. Trump waxa uu noqonayaa gudoomiyaha kaliya ee golahan oo ka kooban 27 xubnood waxaana uu haystaa waajibaad ka yimid golaha ammaanka si uu ula socdo hirgelinta heshiiska xabad joojinta ee Gaza oo ay ku jiraan maamulka rayidka ah iyo dib u dhiska iyadoona Trump uu cadeeyay uu si adagna u sheegay in golahan hawshiisa laga ballaarin doono kaliya ku ekaanshaha Gaza si nabad iyo xal waarta loogu helo colaadaha kale ee dunida ka aloolsan taasi oo u muuqata in golahani uu noqon doono mid bedeli kara ama booska kala bixi kara qaramada midoobay. waa hagaag daawadayaal mar kale habeen wanaagsan guud ahaan waxaa intaasi ku eg barnaamijkii maxaa cusub oo si toos aad uga daawanayseen habeennimadan HBN Online TV si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan kusoo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ee kala duwan ama aadan hore ugu xirnayn hadda kusoo biir tan iyo intaanu dib ugu kulmi doono kulan midkan lacayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo amaana Allah.